gobonnimo waa dharaare haddii dhalanteed bulshada colaad lagu dhiiran jiray dhibkaas wuu naga haro Soomaaliya inay dhaqaqdo abada dhaaftee dhaqaqday ma dhegtee dhismaha iyo tayeynta ciidamada qalabka sida waa talaabadii ugu horeysay oo xoogga u saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ayaa xafiisku ka shaqeeyay ka furtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga halkaas oo si maalinle ah uga waday shaqadiisa ku aadan dib u habeynta ciidamada labada sanadood ay jirtay dawladda hogaamiye madaxweyne Farmaajo ayaa waxa xoogga la saaray in ciidamadu helaan xuquuqdooda sida mushaharka gunooyinka iyo raashinka madaxda qaranka ayaa furay tababaro kor lagu qaaday aqoonta ciidamada kala duwan sida militariga booliska iyo asluubta sidoo kale waxa isbedel lagu sameeyay hogaamada ciidamada iyadoo markii ugu horeysay hormuudka hogaamada ciidamada loo magacaabay saraakiil dhalinyaro ah oo tababar ku soo qaatay dalka gudihiisa iyo dibadiisa dawladdu waxay xoogga saartay in la saxo nidaamka mushaar bixinta ciidamada askari walba oo kamid ah ciidamada qalabka sida waxa loo sameeyay koonto bil walba ugu hagaago mushaharkiisa iyo xuquuqda kale uu leeyahay tigii dhammaay waqtigeeni kuwa dhagarta galay intuu ciidda kala dhigay miinada dhex dhigayo waqtigii dhammaay waqtigeeni bishii December sanadii 2017 waxa ka dhacay Muqdisho shirka amniga iyo iskaashiga caalamka ee Soomaalida kaas oo lagu hadlay xaaladda amniga Soomaaliya waxa la go'aamiyay oo lagu heshiiyay dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ciidamada dhismahooda lagu heshiiyay ayaa kala ah ciidanka dhulka cirka iyo badda waxa jira saaxiibo ka caawiya Soomaaliya dhismaha ciidamada qalabka sida waxa kamid ah dawladda Turkiga oo Soomaaliya ka dhisatay xero military oo ah tan ugu weyn ee ku leeyihiin banaanka Turkiga bishii September sanadii 2017 ayaa xariga laga jaray iyadoo markii ugu horeysay lagu xareeyay 1500 oo askari si loo siiyo aqoon iyo tababaro caalami ah kumanaan dhalinyaro oo si mutadawacnimo ugu soo biiray ciidamada qalabka sida ayaa la siiyay kursooyin tababar kala duwan kuwaas oo ugu dambeyntii madaxda qaranku u soo xireen tababarka marka la fiiriyo dadaalka dawladda ugu jirta dhismaha qaranka iyo sida ay madaxdu uga go'an tahay in uu dalku yeesho ciidamo la isku haleyn karo waxa la filayaa in dhawaan ay Soomaaliya yeelato ciidamo xooggan kuleed garaad Afrindog Media